السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقياتي دوبين سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay video copyright sidaan ugu saar lahayn inuu copyright naga noqon videogaas anaga aan lahaano YouTube marka ku upload garaysid wax copyright ku soo saarin marka aan ku tuso. sida copyright ugu saartid waxaa leedahay Camtasia Studio ayaa soo furnaysaa kadibna videoga ayaa import leedahay kadibna dragon ayaad ku soo jiidaysaa kadib video marka dragon ku soo jiidid videoga waxaad sameynaysaa videoga ayaa waxaa leedahay right click copy ayaa leedahay sida aad u copyaysid videoga marka copyaysid waxaad furnaysaa track labaad ayaa furnaysaa kadibna paste ayaad ku leedahay sidaas marka laba video ayaa ka samaysay copy video u koray iyo video u hooseeya kan hooseeya waxaa leedahay audio ayaa tagaysaa kadibna silent ayaad ka dhigaysaa si codka dham aad ugu xirtid kadibna kan markaad waa ka xirna codka sida ugu xirta codka shiftiga ayaad qabanaysaa asigoo kan hoose selectiga ku saaran yahay dragon ayaad ku sameynaysaa adigoo shift riixaya videoga laba hooseeyay macnaha waxaan sameynay in asaas ka weynino kan kale ayaa imaanayna waxaan ku leenahay in asigana videoga wax ka bedelno waad kale ayaa ku leedahay speed clip speed ayaa tagaysaa meesha 100 waxa ka dhigaysaa 105 inta hartad waa ka dhigi kartaa waa inaad speed wax ka bedesho oo kaliya 105 ayaan ka dhiganaa okay kan hoose ayaan tagaynaa sidoo kale clip waxaan leenahay speed right click speed kadibna 105 ayaan ka dhiganaa kadibna okay ayaan leeyahay inta hartad ayaad ka dhigi kartaa laakiin waa inaad 100 wax ka bedeshaa kadib markaan isla fiiriyo labada videoba isku size waaye markaan clip ka dhigay isku 105 ka dhigay kana codka wax yar ayaan ku dariyaa si codka u noqdo codka u weynaysid sida uu haro u hayo kale wax ka bedeshid ama waa yareynaysaa ama waa weynaysaa size-kiisa oo loo videoga marka hore ahay waa inaad wax ka bedeshaa kor ayaa u qaadaysaa kadibna waxaa leedahay shiftiga ayaad qabanaysaa ama waa weynayn kartaa laakiin ana markaan waa yareyn karaa dhaxda ayaan rabaa inaan qiyaas ku geeyo si aan videoga wax ugu bedeshay size-ka wax ku qaban lahay kadib waxaa leedahay call out-ka ayaa tegaysaa kadib waxaa soo qaadanaysaa blur ayaa soo qaadanaysaa kadib markaa soo qaatay blurka waxaa u sameynaysaa mar kale in labada video dhexdooda aad gelisid kadibna calaamad waxaa ka saaraysaa feed in feed out-ka ayaa ka saaraysaa kadibna videoga waa la ekaysiinaysaa hoostiisa ayaana gelinaysaa saas markaa waxaa u sameynaysaa labada video dhexdooda waxaa gelisay blur ay gelisay videoga hoosena waxaa ka bedeshay codkii ka xirtay iyo inaad weynaysid kadibna waxaan sameynaynaa blurka aan gelinaynaa sidaan ugu sharaxnay android oo kale kadib ama waxaa sameyn kartaa videoga asina waa weynayn kartaa laakiin labada video waxa la isku saaray iyo sida oo markii copyright-ka baarayaan ma qaban karaan arrintan marka videoga markaan break dhahno qaabkaan u sameyn kartaa film maanta saas ayaa copyright ugu sameyn kartaa iyo barnaamijyada TV-yada sida YouTube markaa ku upload garisid aan ku qaban saatana AdSense aad ka sameysid kadibna waa ujeedaa markaa videoga fiirisid sidaas ayuu diyaar kugu yahay inaad copyright ka bedeshid inta badan dadka badan YouTube-ka ku dhow qabaan kan koowaad waa ujeedaa kan labaadna hoos ayaan geliyay dhexdana blur ayaa ku jiro si hor u aragteenba videoga koonaha ayaad gelinaysaa korshaha kadibna waxaad sameynaysaa inaad videoga produce ku sameysid share kadibna 7:1 aad soo dooratid kadibna next ayaa leedahay kadibna project name-ka u sameysanaysid adiga taqaanid iyo meesha aad ku safrinaysid haddii aad meesha awratid inta ayaad ku dhufanaysaa kadib meesha awrata ayaad ku safrinaysaa kadibna finish ayaa leedahay sidaas waxaa ku sugaysaa videogaaga inuu upload ku sameeyo waa intaas oo kaliya markaas videoga ku upload garaysid insha Allah biidnillah kariim wax koo biraada ma arkaysid badan dadka ciyaaraha soo geliyaan oo janaalada laga soo daayo iyo dhammaan barnaamijyada ay soo geliyaan sidaas ay ku sameeyaan copyright-ka insha Allah biidnillah kariim ka faa'iidayso wanaagsan assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh jazaakumullahu khayran